السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada cashirkeena sayniska cutubka koowaad waxbarashada caafimaadka. Cashirka koowaad, nadaafada iyo muhiimadeeda. Nadaafadu waxa ay ka bilaabataa ilaalinta nadaafada jirka iyo deegaanka. Waxaa muhiim ah in aan nadiifino jirkeena iyo deegaankeena si aan uga hortagno cudurrada. Waxqabadka koowaad, waxa aan ka jawaabayaa weydiimaha hoos ku qoran si aan uga hubiyo heerka ay gaarsiisan tahay nadaafada deegaankeena. Kadibna waxa aan buuxinayaa shaxda hoose. Imise suuli ama musqul ayuu dugsigiina leeyahay? Imise jeer ayaa musqulaha la nadiifiyaa toddobaadkii? Tirada musqulaha. Heerka nadaafada musqulaha: aad u fiican, fiican, xun, aad u xun. Tirada shaqaalaha nadaafada. Toddobaadkii imise jeer ayaa musqulaha la nadiifiyaa? Waxqabadka labaad, annaga oo isu qaybinayna kooxo 4-4 ah, waxa aan ka doodaynaa weydiimahan hoos ku qoran. Kadibna fasalka ayaan u soo bandhigaynaa. 1. Maxaa sababa dadka in ay xanuunsadaan? 2. Waxaan sheegayaa magacyada dadka aan aqaano ee xanuunsanaya. 3. Maxaa keenay cudurrada ay qabaan? 4. Imise qof ayaa qaba dhaawacyo muuqda? 5. Imise qof ayaa qaba dhaawacyo aan adiga kuu muuqan? Buuxi tusahan hoose. Magaca cudurka. Waxa sababay? Tirada dadka qaaday. Magaca cudurka waa hargab. Waxa sababay? fayruus. Tirada dadka qaaday. Waxaa qaaday 6 qof. barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo gajiya u bakhtiya basaasto guntisu ka badiyo bulaanye bartaan barwaaqo gaarane.